kulanka golaha aqalka sare ee maanta Muqdisho ay ku yeesheen waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo ay hareer fadhiyeen labadiisa ku xigeen tirada mudanayaasha baarlamaanka maanta soo xaadiray oo ayaa ahaa tiradooda 31 mudane waxaana kulankan maanta looga hadlay oo warbixin laga dhageystay guddiga garsoorka oo qaaftay arrimaha diinta baarlamaanka golaha aqalka sare ee dalka oo warbixino ka soo aruuriyay shacabka Soomaaliyeed ka oo ku aadan arrimaha xajka iyo cumrada oo dadka Soomaaliyeed ay dhibaato badan ee kala kulmi jireen xogayaha guddiga garsoorka iyo qaafta arrimaha diinta Cusmaan Axmed Macow ayaa golaha hortooda ka hor akhriyay warbixin ay ka keeneen arrimaha xajka iyo cumrada waa taariikh markii ugu horeysay ee wasaaradda arrimaha diinta Soomaaliya iyo qaafta ay soo saxiixdo xajka oo shirkad ayaa saxiix jiray waqtigiin maanta gacanta dawladda ay ku soo noqotay doorka maanta labada guddi ama wasaaradda ay ciyaaraysan waxa waaye inay gacantii maadaama ay soo gashay xukuumadda inay toos ay xukuumad u maamusho oo ay doorka xukuumadda ama wasaaradda ay leedahay qaadato waxaa mudnaan leh wasaaradaha hadda dawladda saddex wasaarood ayaa hantidii maqnaad gacanta ku soo celiyay wasaaradda arrimaha diinta qaafta oo xajkeeda soo celisay wasaaradda warfaafinta oo dawladda soo celisay iyo wasaaradda gaadiidka dhulka oo soo celisay isha hawada soo celisay marka saas ayay marka u murantahay wasaaraddan maadaama ay dadaashay oo maanta xajkii iyo cumradii waajib ku ah xajga ama qofka muslimka Soomaaliga in laga helo caasimadda Soomaaliya laga qaato visa laga qaato nidaam uu maro qiimo macquul ah oo wadamada dariska nala sida Kenya ama Ethiopia ama Djibouti xaajigu bixina kan Soomaaliga inuu bixiyo intaasi kadib baarlamaanka aqalka sare ayaa ka dooday warbixinta ay soo gudbiyeen guddiga garsoorka oo qaafta arrimaha diinta laguma talagelin inay shaqooyinka guddiyada ay qabtaan iyo qaraarada golaha ka soo baxay ay kala abgareeyaan oo meel uga soo haraan ayaan ayagana ka codsanaynaa waxyaabo badan oo caqabadaha laga dhawaajiyay waxaa laga yaabaa in waqtiga cariiri uu yahay aniga waxaan dhihi lahaa ugu yaraan sanadkan inaan ku guuleysano labada qodob oo ah service dadka lagu siiyo markay xagga tagaan xajka ay tagaan in aniga wixii la yiri waa raacsanahay waxa iridda u taagan nimanka shirkadaha waxay qaadan kalgood macunaan nimanka dawladdahay ugu waaweyn ayay u adeegaan qofaan qof ku tiirsaneen waxay rabto ma samayn karto safaaradda naftirkeeda iyo waxa ka shaqeeyo waa sidoo kale inta uusan kulanka soo xirin gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayay xildhibaanadu gacantaaga u qaadeen qaraarka warbixinta ay soo gudbiyeen guddiga garsoorka oo qaafta arrimaha diinta ugu dambeyntii waxaa kulanka soo xiray gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi Cabdikariim Maxamuud Shidan warbaahinta dowlad goboleedka Soomaaliya Jubbaland magaalada Muqdisho.